haddii aad u baahan tahay inaad Facebook kala soo degtid muuqaal sidan oo kale qaabkee ayaad kula soo degi kartaa. ugu horeyn waxaad taabanaysaa markaa muuqaalkii aad rabtay markaa sidaad ugu jirtid waxaad taabanaysaa qaybta sheerta kadibna linkigiisa ayaa copy dhahnaysaa oo copy link ayaa taabanaysaa hal mar kadib waad soo baxaysaa waxaad imaanaysaa marka browser ku jira ee mobilkaaga browser walba noocu uu yahay wax muhiim ma aha laakiin browserka kaliya uu jiro soo furo kadibna qaybta kore waxaad ku qortaa save from kadibna search garee waxaa kusoo bixi doona markaa linkigan oo ku qoran tahay save from ama website-kan marka linkiga ugu horeeya ku dhufo kadibna markaa wuxuu ku leeyahay qaybta intaada URL markaa meeshaan aad gelinaysaa linkiga aad soo koobiyeysatay hal mar click sii qoraalka markay kuusoo badboodo calaamada badboodaysa kusoo baxdo cabaar yar ahay basti ku dhah kadibna wax yar meeshaan waa soo raadinaya muuqaalkii kadibna cabirka markaa uu kusoo dejin kartid ayuu markaa option qaybtan kaa siinaya haddaad ku dhufatid marka ana waxaan leeyahay HD iyo SD ayuu kala saaraa markaa HD igu soo deji download ayaan ku dhufanayaa kadibna new tab ayuu leeyahay markaa wuxuu leeyahay download again marka hore aan soo degsaday muuqaalkan marka kadibna wuxuu iisoo gali doonaa gallery-gayga muuqaalka waa kana muuqaalkii wuxuu soo gali markaa gallery-gii haddii aad muuqaalka ka heshay like sidoo kale haddii aad ku cusubtid channelkan kusoo biir mahadsanidin